saddex fariimood inaan u diro saddex jiho oo hawshaasi khusayso. jiho waa qolada kuraasta ku fadhida, jihana waa qolada doonaysa inay ka kacsadaan, jihana waa shacabka miskiinka ee masaalixdiisa lagu ciyaarayo. qolada kursiga ku fadhida waxaan leeyahay, haddii 1,000 sano bal kumanaan sano lagu daayo, nolosha lagu daayo, kursigaana lagu daayo faraha lagaaga qaado, waxaa xaqiiqa ah inay imaan doonto maalin aad ka tegi doonto ama isagu kaa tegi doono. maalinkaana mas-uuliyaddiisii iyo tabiicaadkiisii ilaahay hortiisay kuu taallaa, way kaa horraysaa. nin xilkas ah oo mas-uuliyad iyo culayskeeda dareemaya maanta kuma dhegdhego kursi Soomaaliyeed. maanta cidiyaha kuma dagaalamo si uu kursi ugu fadhiyo ama u fuulo, laakiin xilkasni baa jirta. xil baan la garanaynin sidiisaba wuxuu yahay. marka waxaad ogaataa kursi ma baaqi ahaado, nololina ma baaqi ahaato. fariinta labaadeen doonaya inaan u diro wuxuu yahay, waxay tahay bini aadamku hadduu qur-aankii ilaahay soo dejiyey iyo sunnadii nebiga sal alla alay wasalam uusan ka warhaynin, waxaa fiican inuu kuwaana qaato dhacdooyinka adduunka ka dhacaya ee ishiisu qabanaysa uu akhrinayo. maanta wax way 20 jir ilaahay uma xilqarinin. xawaadista adduunka ka dhacayay waa aayaad ilaahay oo taagan weeye, wax lagu qaato waaye. war aaway raggii kuraasta isku dhajiyay xaggay ku dambeeyeen ee cuquud min as-siniin ka talinaya caalamka meelo ka mida. زين العابدين في تونس آوي، شين العابدين ده آوي، بوتفليقة الجزائر آوي، مبارك مصر آوي، علي عبد الله الصالح يمن آوي، قدافي أفرتن سنة كبدا بليبيا كتلين آوي، ورآوي مدحدي أدونك واتقان. ما أنت هدان هيل الله وحي نوغسو ورما وحا قبرك كو هايستا iyo ilaahay hortiisa waxay la tagi lahaayeen wax badan baa laynoo sheegay, laakiin lagu waana qaadan maayo. ninka kursiga ku dhagan waxaan leeyahay kuwaana qaado qeyrka iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacaya in badan aad ogsoon tahay. fariinta saddexaad waxay tahay, sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso, sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiiggiisa inuu daato. waxaana ku xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto, iska dhaaf in la dile, in la xagto dhibaata sababtaada ku gaadho haddii ay dhacdo, ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo keliga oo qaawan, adaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona ku talagal. tanaasul kursiga lamaadan dhalanin, kulamana dhalanin. ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa, danahaaga khaaskaa baa looga tanaasulaa. tanaasulku waa khayr iyo maslaxo. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kama fi saxiix albukhaari wagayri, maalin isagoo khudbaynaya oo ummadda u khudbaynaya, wiilkiisii xasan ayaa kursiga ayaa la soo fuulay mimbarka. nabigu waa jalleecay sala allahu calayhi waaalih wasalam. markaasuu wuxuu yidhi nabigu sal alla alay wasalam, wiilkaygan waa sayid buu nabigu sal alla alay wasalam. ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo muslimiinoo waaweyn oo dagaalamaya ayuu ilaahay sabab uga dhigi doonaa in maslaxa dhexdooda dhacdo. xasan ibn cali ibn abi aalib sanadkii 4aad ee taariikhda hijriga ayuu uga tanaasulay wixii la isku hayay mucaawiyah ibn abi sufyaan radiyallahu ta'ala anhuma. sanadkana waa sanadka lagu magacaabay sanadkii midnimada muslimiinta, caamul jamaaca. xadiidkii iyo bishaaradii nabiga xaqiiqowday, wiilkaygu waa sayid, ilaahayna ummadda muslimkaa buu ku islaaxin doonaa. sayidnimada qaado oo sharafta qaado oo karaamada qaado
ونين كرسي حوق لقى قاتل شرف ملا نين لإري شرف ملا نين أمدي سأتنازلي با شرف إيا قيمة كله الدنيا آخرها تنازل ومصلحة وتنازل فرينت الله بادي وحن دونا يا إنا نقدره كوحدا اسكو مقعوذي مرشحين تا مدحني مدى إيه دونا يا إنا كرسي كري حدان ننكاس أيقونا كفرستان فرينت كوبادا نقدره يا وحي تاهي وادوكتي هنا وحرد الحسوسين يا كرسيغان iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya cid doonuna siiya qul illahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha dagaal iyo dadaal loo galayna laazim maaha in kursiga lagu gaaro midaan dadaalin buu ilaahay siiya mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiya إلهي باهيو قعنتي سكوتشرو بحييه بالهرطة الرومية ومد لباده كرسي قوى مد لما الروح لما وضا قاضو تضل لما قاضو تضبر لما قاضو هلبو قاضا كرسي هلك قاضا ومدكي سومالي انت اسكول ليسي لقيبيي او قالوا انت اسميين لاندس فلان لغو قنعيي ادوغنا مدحويناته كرسيغي ايا مركي وكودا في الله ويا waxay noqotay in tobanaan kursi oo kala la soo saaro oo lagu qanciyo la yiraahdo landis kana madaxweyne fulan كان مدحوين فلان والكرسي هو مد إلهينا النبو أقري هذه حقيقة بيها كما دبعاوة مد الصدح هذا اللي وحيتهاي إن بدن أو كرسي الرادي سو كوهن قوذي باتشتا دنبلك الراعي إمي سآوي دقال أوغياشي آوي آوي دad raggii dalkan soo burburiyay ee kursiga raadinaya aaway inta kursi kaga fadhiisatay way yar yihiin kulligoodna waxay qaateen wixii dalka ka dhacay ilaahay bayna la hortagayaan miidan kuwaana qaadanayeen miidan wax ku qaadanayeen waxaan leeyahay luqadda qabyaalada daaya هذا الكحرفت لدايا فتنة كعنتها كفوقادا سي مسؤولية دي كتشرت أطلقما يا ذلك أطرا ضد كان أطرا ظروفت أمدها هيسة أطرا إلهي كبقى قبيالة لغوع العلينيو ee la kicinayo ee lagu hadlayo ee lagu dhaaranayo warsootii halka ina dhigtay ma warsootii aan ku hungowday ma warsootaan ku jabnay ma war goormay shaati kale inoo soo xidhatay 30 sano kadib goormay shaati kale soo xidhatay soo iyadii un ma waa iyadii laakiin wajiyada isbedelay shalay waxay ahayd generaal fulaan buu ahaa shalay maantana waa siyaasi fulaan لكن واحد قالوا يزبد لي ما تشرو وعن لا يفتنها أبابلنا آفنا ذلك يددك صوها وقلنا قننا شر لهرسيدها وقلنا قننا فتنة لمرد الدمية شر لسكمت نريرية وأن لقى فقادة وأن لقى تحدرا كهر تقبو ليه كدب تقمله آفدو هذا هرطيه لا عدنا نيوال بيسا ميسا دروس تدرا وأنه هينا waxaan leeyahay oo ugu dambeysiyay kalimaadkan qolada ku leeyahay ummadan aad isu keenaysaan leedihiin mudaaharaad sameeya oo saaxadaha iyo banaanada aad isu keenaysay leedihiin dastuurka loo ogol war waxaan idin leeyahay meesha waa muqdisho war waxaan idin leeyahay muqdisho idinka laga yaqaana war bishiiba inta soo qarax baa ka dhaca
war maalinkiiba intaasaa lagu dilaa war magaalada hubbaa dhexdeeda yaalloo ku faafsan war kooxa dadka laayaa tifka ah ama diin ha sheegteen ama kuwo kale ha ahaadeen war way fududdahay dadkaa isu imaanaya dhexdooda in balaayo laga qarxiyo war mid baa ku dhex dhuuman karoo isqarxin karaya war mid baa ku dhex dhuuman karo oo dadkan kadaata xabadayn karoo layn karaya war ayagaydaan kontarooli karayninoo hadday dhaqaaqaan xoolahana burburini hantidana burburini oo boob iyo dhacbaa imaanaya hanti la burburiyaa imaanaysa mana kontarooli kartaan dowladina ma kontarooli karto been waaye ya dowladaha waaweyn baa kontarooli kari waaye mudaaharaadku markay dhaqaaqaan dadkan waxaa ku jira dad xilmo kas ah dad waxaa ku jira wax booba cisaabaad ijraan baa ku jira ya war maraykan baa kontarooli waayey oo faransiis baa kontarooli waayey oo ingiriis baa kontarooli waayey oo dowladihii xoogga badnaa baa kontarooli waayey ummaddu hadday dhaqaaqdo lama kontarooli karo waxa dhici karana ma saadaalin kartaan isweydiiya yaa mas-uuliyadda qaadi doona isweydiiya yaa mas-uuliyadda qaadi doona markaad ummaddan ku khamaaraysaan oo keliya ujeeddadiinnu ay tahay inaad ku abuurtaan keliyata breshar aad ku abuurtaan qolada idinka soo horjeeda oo waxa la yidhaahdo muxuu ahaayey caalamka aad abuurtaan breshar ku abuurtaan ujeeddadiinnu intaa tahay waxay dhici kara iyo dhiigga daadan kara iyo aafada imaan karta iyo hantida burburi kartada aad wax badan ka ogsoon tihiin maxaad u khamaaraysaan maxaad dhiigga ummadda ugu khamaaraysaan maxaad masaalixdeeda ugu khamaaraysaan maxaad hantideeda ugu khamaaraysaan bimujarad inaad kursi gaadho aan la hubin inaad gaadhi doonto maxaad ugu khamaaraysaan dastuurkaa qaba waa xaq dastuuri ah war dastuurkan qabayo waa kee ma kii gaaladu idiin dejisay soo ma ah kii idinkala qaybiyey soo ma ah kii landhiska idinka dhigay soo ma ah dastuurkan aad sheegaysaan haddii uu kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga ka hor yimaado waa xaq dastuuri ah dastuurkiinba caqligiinnu iyo wacyigiinnu hadduu heerkaa joogo maanta aad garan la'dihiin war maxaa imaan kara maanta ummadda meeshaa laysugu keenayo maxaa ka dhalan kara aad qiyaasi la'dihiin masaladu masale siyaasadeed maaha masale dowlad loogu hiilinaya maaha mas'aladani waxa weeye waa muslimiin lagu khamaarayo dhiig yar oo ruux muslima ka daata ayaa ka muhiimsan dhiig yar dhimasho maaha dhiig muslim oo daata oo dhaawac ku daata ayaa wallaahi uma wallaahi ka muhiimsan kursiga iyo waxay u ordayaanba nebi maxamed baana sidaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka baqa war aakhiradiinna ilaaliya war ummaddan ha ku khamaarina war dalkan dhibka ka daaya war waxaan kadaata farsameeya war isu tanaasula war tartiib u wada hadla war wixii maslaxa isla xaqiijiya war damiciinna dib u liqa masaalixdii damiciinna khaas ka ah maslaxada dalka iyo dadka ka hormariya ilaahayna uga baqa tabaaraka wa tacaala fariintayda ugu dambaysa waxaan doonayaa inaan idhaahdo shacabkan miskiinka ah ee lagu ciyaarayo ee maalinna magaca qabyaaladeed loo soo huwanayo maalinna magacyo kaleeto loo soo huwanayo rag damac iyo kuraasi iyo shahwo kursi haysana ay maalinba dab ku daadinayaan shacabkan miskiinka waxaan leeyahay shalayna wixii meeshaa ina dhigay waa wacyi xumadeenna nimankii jabaadaha hogaaminayee gaaladu ay soo taageertay ee dalka burburiyey waxay inagu kacsadeen qabyaalad iyo ree hebel markaan gubannayna innagaa dabkii ku gubannay maantana waa sidii weeye cidda guban doonta oo dabka ku guban doonta waa innaga waa shacabka waa hooyada waa caruurta waa ardayga wax baranaya waa curyaanka war innagaa gubanayna waa dalkeennii waa deegaankeenii innagii baa gubanaynoo dab ku daadanayna maslaxadeena inaan garanno waayo inay isaga keen khaldamaan ma aha cid maslaxadeenna ficlan ka shaqaynaysoon dan inugu wadanin iyo nin dantiisa wadoo kursi doonayo awrka inugu kacsanayaa inaan kala fahmi weyno waa wacyi xumo in layna yidhaahdo soo baxa oo khatarta u badheeroo sidii dab laynugu dabaalalay oo kaleetana waa wacyi xumo
inaan gacmaheenna ku burburino amnigii dalka iyo deganaanshihiisa iyo xasiloonidiisuna waa wacyi xumo. aqoon darrada iyo wacyi xumadaana waa wax laynooga faa'iidaystay. waxaan dhihi lahaa danteena aynu garanno.